deegaanka sidaas muhiimadda u leh waxaa jirta dhibaato badan oo ka imaanaysa bini'aadanka oo haysata. Dhibaatooyinka bini'aadanka ka imaanaya waxaa ka mid a in ay jaraan sida geedkan ka muuqato oo kale laantan waxaa loo jaray dhuxul in laga samaysto. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulqaadir Cumar Siyaad. Takhasus ahaan aniga waxaan ahay biologist, gaar ahaan marine biology ayaan kusii takhasusay. Badda aniga noloshayda waaye, waxaa ku tiirsan xirfadeyda iyo waxa aan aqaano. Maanta marka waxaan joognaa deegaanka Jazeera, gaar ahaan Jazeera Lagoon, Nimow ama Abaydhaxan, meesha ay ka baxaan geedaha la yidhaahdo mangrove-ka, Soomaalida u taqaano shawro. Waxaa ku lamaanan geedo badan oo dhirta cawska ah ee badda hoosteeda ka baxdo xeebaha oo la yidhaahdo geedaha salt marsh plants. Dhirta deegaanka qoyan ee cusbada ah, deegaan biyoodka cusbada ah ka baxdo ayaa ku lamaanan. Waxaa waaye meel shimbiraha ay ku soo hirtaan oo bird nesting ah. Waxaa aad caan uga ay leedahay oo lagu arkaa flamingoska, shimbirahan loo yaqaano. Waxay u tahay meel ay ukumaha iyo dhigtaan ka quutaan oo kalluunka biyahan ku jira iyo waxyaabahan biyaha soo raaco badda ka imaada ay raadsadaan ay quutaan. Mangroveska waxay ka baxaan meesha ay iska galaan inta badan biyaha badda iyo beriga xeebta deegaanka ku yaallo, meelaha xeebaha biyaha dhoobeyda ah leh ama dhiiqada ah oo biyo fariisadka leh, sida kan oo kale, biyo fariisadkan oo kale. Mangroveska muhiimadiisa marka way badan tahay. Waxaa ka mid a wuxuu u yahay breeding ground, meel uu ku tarmo kalluunka. Waa meel deegaanka ka ilaaliso yacni dhibaatooyinka dabiiciga sida duufaanada xooggan oo kale ka celisa. Waxay ka celisaa badaha hirarka waaweyn ee ka imaanaya ay ka celiyaan deegaanada ku dhadhow badaha. Waxay leeyihiin deegaanka ay waxay ka qaataan ay ka saaraan sunta badanaa warshadaha ka soo baxdo oo carbon dioxide-ka iyo greenhouse gaseska ay ka mid yihiin. Waa meel dalxiis, waa meel laga kalluumaysto, meelaha mangrove-ka uu ka baxo biyaha maadaama kalluun badan uu ku tarmayo. Mangroveska waa nooleyaal sensitive oo dabargo ayaa ku socdo guud ahaantooda, deegaanadooda dhan inay sii yaraanayaan caalamka ayaa la sheegaa. Sida hadda ka muuqato geel ayaa nala joogo oo meeshan haddaba daaqayo saacaddan aan taagannahay oo geedkan aad u cunayo. Waxaa kaloo dhibaatooyinka haysta ka mid a dhirtan in meesha ay ku taallo yacni loo isticmaalo baahiyo kale sida in cusbo laga sameeyo kale. Marka geedkan iyo dhibaatada haysato waxaa kaliya looga bixi karaa wacyigelin baahsan in la sameeyo, lagana wada shaqeeyo bulsho iyo dowlad iyo nooc walba dadka deegaanka kalluumaysatada inay ka wada shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa dhirtan gaarka ah ee dabiiciga ah, sidii loogu ilaalin lahaa deegaanadeeda. Aniga shakhsiyan ka muwaadin ahaan wixii aan qaban karo oo aan ka galo deegaankan iyo ilaalintiisa iyo wacyigelintiisa oo dhan waan sameeyaa. Waxa ugu horeeya waxaa waaye ardaydeyda waxa aan aniga ka aqaano inta aqoonteyda ay tahay ayaan u gudbiyaa si ay uga faa'iidaystaan oo ayagana ay wax badan uga ogaadaan. Mishanka aan ku wada jirnana ay qayb uga noqdaan oo ay ka qayb qaataan. Waxaan marka trainino badan u imaanaa halkan oo deegaankan ay training ku qaataan oo ay fieldiga si ay wax badan uga fahmaan casharada kalaaska loogu dhigo halkan ay la imaadaan. Waxaa kaloo ayadana ay ka qayb qaataan in la baahiyo geedahan oo waxay qaadaan seeds, jaamacadda ayaa la geeyaa, waa la beeraa. Markay soo weynaadaanna deegaanka lagu soo celiyaa ayadoo lala kaashanayo bulshada deegaanka. Bulshada deegaanka wax badan oo ka mid a ardayda iyo way is yaqaanaan, waan isbarannay, wayna soo dhoweeyaan dadka reer Jazeera, dad aad u wanaagsan oo haddii loo yimaado soo dhoweyntooda fiican tahay waaye. Alternative sourceska matalan deegaankan aan joogno, livelihood source dadka hadda matalan waxaa ku tiirsan cusbada soo saaro oo ayagana mangroveska caqabad ku ah inay mangroveska meeshii lagu baahiyo la gaarsiiyo deegaan dheer ilaa 100 hektar la gaarsiiyo. Ayaga caqabad ku soo celinaya. Marka ayagana in ama locationka loo bedelo ama meel kale oo kaga habboon halkan loo geeyo oo cusbada halkaas ay ku samaystaan, deegaankan mangroveska loo dhaafo. Waxaa kaloo deegaankan aan joogno ku tiirsan dadka xoololeyda ah ee ka agdhow mangroveskan halkan ku yaallo oo ayaguna caqabad ku ah oo xilligii jiilaalka oo kale xoolahooda halkan keenaan oo mangroveska ay daaqaan.
ayagana haddii dhulkii daaqsinka oo kale iyo loo hagaajiyo oo waraabkii iyo wixii loo hagaajiyo maynan u baahnaan lahayn halkan inay imaadaan duruuf ayaa ku qasabtay ayagana alternative-kaas ayay heli karaan in dhul daaqsinkoodii la hagaajiyo la maalgeliyo waraabkoodii iyo biyihii ay heli lahaayeen dadka dhuxusha ka jarto oo deegaanka mangroveska oo kale dhuxusha ka jarto oo dhirta jaro oo dhirta goynaya ayagana kulley ayagana dhaqaale ayay ka raadinayaan oo dhuxul ay ka samaystaan iyo waxay guryahoodii ku shitaan dabka ayagana in gaasaskan LPG-ga oo kale lasoo gaarsiiyo marka haddii uu jiro qorshe midaysan oo lagu ilaalinayo biodiversity-ga waddanka si gaara biodiversity-ga noolaha badda waxaa qasab noqonayso in ayadoo xeerarkiina la fulinayo dadkana livelihoodskooda laga fikiro dadka ku tiirsan nooleyaashaas la ilaalinayo in looga bedelo noolahaas ay ku tiirsan yihiin dhibka uu ku socdo bareesharka laga qaado wixii ugu macquulsan oo xal u ahna la siiyo haddii ay ahaa lahayd taageero dhaqaale iyo haddii ay ahaa lahayd maalgelin ama haddii ay ahaa lahayd sektorka in loo bedelo oo meel kale ilo dhaqaale looga sameeyo. This monument represents the tomb of an unknown soldier. This is me, and this is my Somalia. The red sand slipped through my fingers like memories breaking apart in the wind. Aragu ma ahan indhaha ee waa qalbiga. Art markii la sameynayo nabad waaye. Thank you guys for watching my videos and supporting my channel. If you're new here, please subscribe and like, and also share my content. If you're not new here, then also press the like button and subscribe. Until then, see you next time.